السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيارت شرفت لك كسر هذا يوتيوب بيج كان عمر شاوقر ما طبعا فلان دونا قولكي ودحي كوحا سوتمتون iyo ما يونايتد شاليس ديسا ay bardoornimo ku dhaxmaray guriga kooxda Southampton kulankaas oo kooxda Man United ee dhaga ugu dhufatay Southampton 3-0 sidii shalay video ku horeeyay aan ku qiyaasaynaybo macallin Ten Hag shaxdii anaga filaynay inuu ku soo bilaawdo ama ku soo bilaaban oo wuxuu dhaxda soo gashaday Eriksen ninkaas waa taqaanaan waxa waa Ten Hag mar walba wixii laga filayo ma wax ka duwan oo sameeyaa marka shalay yaa isdhahay Eriksen oo dhax ku soo bilaabana ama Casemiro oo keenay la dhahay ama Manuel Ugarte qadka dhexe cusub ku soo bilaabay la isdhahay Eriksen oo hore ka dhamaatay oo macna ciyaar ku soo bilaabay ma bal isdhayninba at least markay kooxda goolal yeelato kadib macquul inuu ciyaarto 20 daqiiqo kadib soo geliyaa laakiin inuu ku soo bilaabo marka shaxda arkaan waxaan bisnahay United maanta dhaxda waa laga qabsan doonaa daqiiqada ugu horeeyba gool laga dhalin doonaa sidaan isdhahay inuu noqoto ciyaarto 9 daqiiqo maraysa penalty lagu helay ونانا إلهي نوفك يو جول كاس بنالتي نقبل بعد ما يعني هدي جول كواس بنالتي نلقى دليل هاي يرتدي إنه وني جبل هاين قلنا صوتهم إنه عوا ونقص دير الهاين وورك ونقص يوزر الهاين مركا جول كاس أوسف جري ونانا وعلى اللي وعودك ما جول عودك ما ساسو كلته واحد جول كلا بعد كوف فرتي ماركوس راشفورد نكاس وقتنا عبارة هيسي سدح قلنا أول صول للبريمير ليجا هل شود نمردين هل جول نمردين سكنا إنه جول اللي شود ولا جوايه مركب على سلاح مع Ten Hag محون كان معلوم بصفة بنون إنه شود لقى مهله إنه جول اللي لقى مهله بأساس أو لقى مهله أسيست لقى مهله محون معلوم بصفة على ده ساسة تاي شالي وعوا كلسوني ومع Ten Hag أموجي أو أفرتان كل أموجي وهو أبالغ جول وهو أبالغ markay goolka labaad aan ka dhalinay nimanka waa istaageen oo Bruno waa ka qabsanaba control kan baan naga qabsanay kadib waxa waaye waxa goolka labaad dhaliyay Delight goolka waa Delight ayaa noo dhaliyay madax ayuu dhaliyay ogtiin goolka labaad Rashford ayaa noo dhaliyay goolkii saddexaad 90 balas extra time waqtiga lagu daray waxa Garnacho bedel lagu soo geliyay dhaliyay asigana oo macna Ten Hag waxa ninkan Garnacho maalin bakeedo saa u geliyaa asigana maalmo markii keedka laga soo saaro oo ciyaarta garoonka la soo geliyo goolkiisa uu dhashada waxa leeyahay hadda wuxuu ku haystaa Cristiano Ronaldo post oo soo dhigay YouTube-kiisa oo hadlayo Ten Hag inuu Premier League qaadi karin oo waxa uu hadlayo oo like saay Garnacho saas darteed line up ku laga saaro ninkan Benjiliya laga dhigay oday marka oday oo dabeecad lama aan oday oo ciyaartooyda waxa waa social media waxay ka sameeyaan ama wax yar ka sheegaan horkeed ka gelinayo Garnacho waa garabka ugu fiican kooxda Man United jooga saasay taayna maalmo bakeeda la geliyaa Rashford waxa meesha ku hayno hal soo safa marka macallin Ten Hag Garnacho ma ku sii hayn doona keedka oo asoosan maalmo keedka markii laga soo saaro gool dhalnaa ma ku sii hayn doona masalan abko xaq oo leeyahay uu geli doona oo Rashford uu fadhiisi doona waa mid la isfiidinayo saasoo kale waxa ciyaarta markii Cambi dambo 7 meelas maraysay wuxuu macallin Ten Hag soo geliyay Manuel Ugarte oo runaantii qadka la wareegay controlka qadka dhexe kooxda kubada fiican soo bandhigay nimankan Southampton Bruno si fiican u haysanay wuxuu kale soo geliyay wuxuu kale bixiyay Delight oo lisnaayba dhaawac ku baxay oo muruqa booday waxa la isdhahay ninkaas anaga ogtiin United waxa musiibadan haysato kulan kasta ciyaaryahan naga dhaawacay ama hal ama laba naga dhaawacay marka waxa la isdhahay Delight waa dhaawacmay waxa yar kadib wadana waxa la arkay Martinez oo hintinayo asigana waa la bedelay waa dhaawacmay isdheeyna afarta daafac gadaal saddex kamid waa la bedelay ayadoo dhaawac loo shakisan yahay laakiin gadaal dambe markii la ogaaday inaysan dhaawaceen kulligood ay fiican yihiin Delight kaliya oo macnaha muruq wax yar oo ka booday oo ka fiican yahay kulanka xiga u dheeli doono shalay kulankii United ciyaarta soo bandhigtay dadka maxay la tahay bislaysan United 3-0 ku badan doonto oo clean sheet qaado doonto oraan hadana penalty save garay doona ninkaas waa taqaanaa waxa penalty saving kiisa waa inuu Benoni save garay oo dhan abu ku yarbo marka halkaas ay ku soo gabagabeynayna falanqaynta kulankii shalay macallin Ten Hag sidoo kale waxa leeyahay ciyaartoydiisa kuwa u fiican ayagoo macnaha ciyaartooyda qaar dhaawac ugu maqan yihiin kuwii fiicnaay oo san line up ka siirin baada Ugarte line up lama siinin
delight kan maanta ugu horreysay macnaha shalay ugu horreysay line up-ka uu soo galay maalmihii ku horreysay waa lagu adkeynay marka maxay idin la tahay macna Ten Hag ma ku sii socon doonaa oo guushan ma sii wadan doonaa Crystal Palace waa kulanka ku xeew waa koox adag waa nimankaas ma yaqaanaan United waa Liverpool waxas ma yaqaanaan la fay kula dhiganaa marka Ten Hag kulankaas natiijo ma ka keeni doonaa qaab ciyaareedkan uu wax ku wado ciyaartoydiisa waxay soo bandhigayaan wax oo shanta kulan soo socoto natiijo uu heli kara ma noqon doontaa oo waxa la leeyahay Ten Hag hadii kulamadan shantan kulan soo socoto hadii kulan kamid laga badiyo ama hal ama laba kamid laga badiyo mustaqbalkiisa ba shaka ku jira waxa qasab ah maadaama 9 dhibcood oo hore 3 kulan oo hore 6 dhibcood uu dhumay waa inuu kulamadan dhan dhibcood uu qaado karo uu qaataa Premier League waxa waaye kooxaha yar yarka hadii ku garaacan koox weyn ay ku sugayaan waxba ma haysato macnaheedu marka inta si ay ku soo gabagabay doona sidoo kale ninkii Sancho ay kooxda Chelsea waxa ay ku dhigan tahay ever oo gadaal laga soo geliyay oo assist sameeyay Bruno asiga dhigay oo kunku dhali marka waxa leeyahay waa ninkaas waaba lagu gaaday ma kooxda Man United inay Chelsea ninkaas kala wareegto oo lagu dhacayo laakiin anaga ninkaas inuu dhaafadana lagu jirto isbuuci 300 oo qaadana 300 oo qaadana wax ma qabanayo tabarka oo ka soo daha garoonka dil geliyo waxa waaye Bruno markii laga haysto dib uu soo raacanayo inuu dhaafo ninkaas anaga khayraano laakiin waxa waaye dadka ka soo horjeedo United ay leeyihiin ninkaas United inuu ka tago waa ku qaldan inay iska diraan ninkaas way ku qaldanayeen oo ogta TV-yada iyo wariyaasha waxa dhan waxay jecel yihiin jabka United ay jecel yihiin maanta hadii United guul daraysato wax kale ma laga hadlaa maanta oo dhan ayaga laga hadlaa hadda Liverpool waa laga raay wax ka hadlaa arkiisid wax ciyaartooydeeda macnaha oo dhaleeceynaya arkiisid saasoo kale kooxaha kale hadii laga raayo cid ka hadlaysa arkiisid laakiin maalinka United ama laga raayo ama ciyaartooydeeda oo mid kamid ah qalad sameeyo isbuucaas dhan waxa asaa shaashada saaran waa macnaha inay kooxda ugu weyn Premier League tahay cadeynay waxa soo weyn ma laakiin isbuucan Ten Hag waxa soo ka raysanaya maadaama waa ka nasanaya buuqaas iyo qayladaas maadaama uu 3 dhibcood ka soo qaatay 3 goolna dhaliyay clean sheet ka soo qaatay marka inta soo gabagabeynayna falanqaynteena YouTube page ka like noo saara share da subscribe noo saara waxa idin kama subscribe ku lacag macaan marka يلا سعيد أنا لا صار أنت سأقول لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.